kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aanu ka diyaarinay maxamed cali maxamed oo ka mid ah ardayda jaamacadda Camuud University ee magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal. maxamed cali maxamed waxay ahayd bilowgii sanadkani markii magaalada Boorame ay kula kulmeen mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Alpha Trust waqtigaas oo ay Soomaaliland u joogeen howlo gargaaraha. waxayna maxamed ka xog wareysteen noloshiisa iyo waliba qaababka waxbarashadiisa. maxamed cali maxamed waqtigaas waxa uu qiray inay soo wajahday arin adag oo dhinaca noloshiisa isla markaasna saameyn xoogan ku yeelatay waxbarashadiisa iyo tan qoyskiisaba. waxaan waqtigaasi si dheer oo qoto dheer uga waramay nolosha kala gedisan ee familkiisa ama qoyskiisu ay ku noolaayeen, isagoo qiray ama sheegay in qaar kamid ah dadkii ugu jeclaa familkiisa ay dunidan aynu saaranahay korkiisa uu ku waayay, sida hooyadii, aabihii, adeerkii, walaalkii iyo awowgii oo iyagu muddo aan saa u kala fogeen ku go'ay amaba ku geeriyooday gudaha magaalada Boorame. maxamed cali maxamed marka aad u dhabagasho dhinaca noloshiisa ama mustaqbalkiisa waxa aad ku tusaale qaadanaysaa ama aad dareemaysaa waxyaabo badan oo dadka inta imika ladani aysan isweydiin. waxaana maxamed cali maxamed ka gudbay duruufo adag oo noloshiisa soo saameeyay. waqtigaasi cabashadii ugu weyneed ee ururka Alpha Trust uu soo bandhigo waxay ahayd cabasho dhinaca taageerida waxbarashada ah, isagoo waqtigaasi aan jirin cid taageerta amaba taakuleysa waxbarashadiisa. waxa uuna mararka qaarkood looga ceydhin jiray iskoolka amaba jaamacadda waqtigaasi uu dhiganayay dhinaca dhaqaalaha ama fiiga loo yaqaano ee jaamacadda, iyadoona semestero badan amaba jaamacadda siyaabo kala gedisan ay hakad uga gashay waxbarashadiisu, islamarkaasina dhowr qalinjabinood oo uu arday fara badan la dhiganayay ay ku dhaafeen isaga sidaas kadib markii cadaadis dhinaca dhaqaalaha uu soo food saaray. maxamed cabashada iyo dareenkaas uu u gudbiyay ururka Alpha Trust waxay waqtigaasi ballan qaadeen mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Alpha Trust oo ay ka socdeen gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud ee hay'adaasi Cabdisalaan Muumin inay kafaalo qaadayaan bixinta kharashaadka jaamacadiisa inta dhiman iyo waliba qalinjabintiisa. waxaana hadaladii waqtigaasi dhex maray mas'uuliyiinta Alpha Trust iyo maxamed cali maxamed ay u dhignaayeen sida tan. maanta waxaan soo booqanay jaamacadda Camuud. jaamacaddan waxaan kula kulanay maxamed cali maxamed, aniga iyo Cabdisalaan. maxamed cali wuxuu noo sheegay in jaamacadda problem badan uu ka haysto xagga markino dhaqaalaha, maadaama uu yahay nin wiil yar oo 20 jir ah. aniga dareenkayga maanta aad buu u kacay. maxamed wuxuu ii sheegay inuu yahay nin agoon ah, hooyo aabba aanan haysan. maxamed wuxuu kaloo noo sheegay in walaalkiis iyo koronaay uu gacan qaban jiro hooyo aabba markay dhinteen. maxamed marka walaalkiisna sidoo kale wuu yar geeriyooday. maxamed marka asaga ugu weyn 4 dumar ayaa la dhalatay iyo wiil 4 dumar iyo adig Soomaa. marka maxamed xoogaa aad baa ugu murugoonay markaan xoogaa aan wada hadalnay. waxyaaladku uu noo sheegay maxamed waa nin raba inuu wax barto, inuu koriyo 4 caruur oo ka yar waa agoon. marka jaamacaddii wuu awoodi waayay dhaqaalaheed inuu bixiyo maadaama jaamacadda lacag lagu dhiganayo. sanadkii ugu dambeeyay waay imtixaankii ma geli karo, jaamacaddii inuu ka fadhiistay noqone. maxamed maanta waxaan u ballan qaadaynaa Alpha Trust ahaan inaan jaamacadda sanadka inta ka dhiman aan ka dhiibno si asagana markino maxamed si moraalkiisa uu dhismo. waxaan kala rabnaa sanadka markuu dhameeyo si degree uu diyaariyo 4 sano soo socoto. Alpha Trust waxay ballan qaadaysaa 4 sano soo socotana in ay ka dhiibto maxamed si markino berri uu noqdo ninkii wadankiisa anfici lahay, walaalihiisana korsan lahay. annaga dareenkeena aad buu kacsan yahay, shucuurteena sidoo wax noogu sheegay maanta macaawin u baahan yahay. walaakin ilaahna la kulansiiyay. annaga waxaan u nimid abaaraha, maadaama abaaraha u nimid fees transamaynayna survey jaamacadahan tagaynay. ninkan macallimiintana way noo sheegeen nin dadaalkiisa aad iyo aad u fiican yahay, wax baranayo, yani moraalkiisa high ah, laakiin waxa ciilaya waa tabar darida markii xagga dhaqaalaha fandanka ah. marka ilaahay xaqiisa waxa ku dhiibanaynaa maanta anagoo ah Alpha Trust. waxaan rabnaa maxamed yar inaan ka saarno sanadkan iyo 4 dambe u dhii markino yani imtixaanka uu ka qaadanayo maadaama dalkiisa uu anfacay. maxamed wuxuu kale ku nool yahay markuu jaamacadda dhameeyo wuxuu maraa wax noogu sheegay xaafadaha tutushan buu dhigaa
si lacagta markino tutushinka uu isaga sii dhiibay jaamacadda iskuulaad kale maxamed wuxuu soo dhigaa iskuulaadka yararka xaafadaha home teaching oo dadka wax ku bara si markino uu yani ugu soo saaro nolol maalmeedkii walaalihiisa ugu koorin lahay iska dhaaftii jaamacadda ku sii adagbo nolol maalmeedkii afarka caruura ka yaryar asaga aabihi hooyo ah marka maxamed anaga waxaan maanta damirkeena u nasiin inaan soo garab istaagno aan ka saarno ilaa jaamacadda heerka ugu fiican maadaama uu yahay nin dadaalay macallimiinta sida wax noogu sheegeen nin waxbarashada fiican tahay laakiin jaamacadda uu luus gareyna haddii aan maanta wax ka dhiibin ninkan jaamacad ilaahna la kulansiiyey maanta am habi maanta aad iyo aad waxa farxadno nin saas u nii fiican ilaahay anagoo niideen anagana dad sadaqa wax ku sadaqaysanayni inaan maxamed wax ugu saarno si afartaas caruura oo asagana ilaahay wax ballan qaadi karo si uu u sii koriyo maadaama ay yihiin famil agoona ninkii ugu weynaa waay 20 jir waay da'da uu yahay iyo maskaxda uu leeyahay isma laha alxamdulillah ilaahay maskaxda yani fiican ku abuuray iyo aqliga 20 jir soo u sheekeynaya u degan yahay alxamdulillah wax lagu farxo waay marka waxaan ka codsanaynaa qof walba oo markan islaan ah in la caawino qof kastoo magaca Soomaalida sheeganay in la soo garab istaago bijillah dar Allah wax loogu qabto ilaahay baa maadle marka hore mar labaad waxaan halkan aad uga mahad celinayaa gudoomiyaha iyo agaasimaha hay'adda Albatros ballanqaadka ay sameeyeen iyo maaragtay barnaamijka isaga ah hawsha iyada ay ka faalo qaadeen runtii waa dhibaatooyin kamid ah dhibaatooyinka kurbooyinka maaragtay adduunka oo qof muslim oo walaalka uu kula garab qabto alxamdulillah macallinkayga Xasan iyo dhammaan inta maaragtay hawshaas ila wadayba hawsha igala qayb qaatayba aad baan ugu mahad celinayaa hay'adaasi Albatrosna run ahaantii aad baan ugu mahad celinayaa waayo maaragtay waa hay'ad hawshan iyada igala qayb qaadatay waa hay'ad ballanqaad ii fulisay in nolol maalmeedkayga inta ka dhiman aan dhamaystirto taasi oo aan ugu talagalay markaan run ahaantii ay imika iga baxday niyad jabkii iyo axwaashii aan ku jiray iyo maaragtay hawshii iyada ahayd ee aan maaragtay ku jiray taasina ay noqotay mid markaa maanta aan isku dayo hadda kadib inaan waxbarashadeedu dadaalkayga qabsado oo aanan ka fikirin maaragtay dhanka paymentiga lacagtu iga soo galayso iyo dhanna maaragtay ka imanayso markaa risqiga kulli ilaahay baa fura waana risqi ilaahay soo diray markaa insha Allah aad baan ugu mahad celinayaa alxamdulillah rabbil caalamiin wad maasantiin waqti kasta oo adag oo qofku uu soo maro waxaa jirta waqtiyo uu ka gudbi karo oo ilaahay uu guul ugu dhameystiri doono waxaana maxamed cali maxamed isla waqtigaasi jaamacadii ku fadhiistay wajiyo dareena farxadi ku dheehan tahay kadib markii laga ballan qaaday in jaamacadda inta ka dhiman ay iyagu bixin doonaan waa mas'uuliyiinta ururka Albatros waxaana sida hadda idinka dhex muuqata muuqaaladaasi aad arkaysaan maxamed oo si habsamiya waxbarashadii u baranaya oo fadhiya galaaskii waxaana maxamed waqtigaasi farxadiisu ay noqotay mid noloshiisa iyo mustaqbalkiisaba dhista muddo dheer ka bacdi waxa uu sidii maxamed ku dhigto waxbarashadii jaamacadda Camud University ee magaalada Boorame waxaa la soo gaaray waqtigii qalin jabinta jaamacadda isagoona waqtigaasi kagala qayb galay ama uu ka mid ahaa 680 arday oo ka qalin jabinayay jaamacadda Camud University iyadoona qalin jabinta ardaydaasi uu ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xubno ka mid ah golayaasha kala gedisan ee dawladda iyo kumanaan ka mid ah waalidiintii dhalay ardaydaasi xafladaas qalin jabinta oo ahayd mid dareen gooniya siinaysa dhammaan intii waxbarashada soo dhameysatay iyo intii kala qayb qaadanaysa farxadaasiba ayaa maxamed waxa uu ka mid noqday dadkii ugu farxadda badnaa ee waqtigaasi dareen farxadi ku dheehan tahay ay ka muuqato maalinta qalin jabintiisa maxamed muuqaaladii ugu layaabka badnaa ee maalintaasi aanu ka duubnay waxa ay u dhignaayeen sida hadda idiin muuqata isagoona wejigiisa ay ka muuqato farxad aad u ballaaran oo aan la soo koobin karin taasina waxay muujinaysaa dhiirigelinta dhinaca waxbarashadiisa ee ay kafaalo qaadeen مسؤوليين سرسرة أورك الفتراس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما الشرف والبعيد هاي إن الحفلة توجه كسر قلب زرق قريتها أزالتها لك جامعة عمود وحنا مريم بالعرض الدرية وهلا هاي معلمينها أرديت قلب شدرسة والدكم معلمتي استاف غير تفش قيسك قيب بشيء كهو بشيء بقى آليات بأمام بليرية جامعة عمود وحيابها قبلتي وحيابها كيدتي وكفانو وحيابها كل يقول فانو وأنا مرحبا هاي سيد اللي هو يبعو يشرف ويقرأ كوت هاي أنا قرأوا حنوت هاي وحول بينوت هاي وحنا قاسوا بالرواتا
ilaahay waxaan ka baryayaa inuu lagu geliyo sanadkiisana bashbashii barwaaqay u gaadhsiiyo ayna hawsha hawl fiican oo noqoto waxaan leeyahay hambalyo maalin wanaagsan ilaahay barkiisa ha galo ilaahay isku shukrinayna wassalaamu calaykum maxamed farxadda qalinjabinta kadib markii ay soo dhammaatay munaasabadii koobneed ee shahaadooyinka lagu guddoonsiinaya ardayda ka kooban 680 arday waxaan maxamed kula kulmay fagaara hore ee jaamacadda Camuud University waxaana hadaladiina dhexmaray ay u dhignaayeen sida tan dhinacii waxaa jooga maxamed cali maxamed oo ka mid ah ardayda ka qalinjabinaysa maanta jaamacadda Camuud University gaar ahaan fakalka macalinimada maxamed sidoo kale maxamed waxa uu ka mid yahay amaba uu ahaa dadkii ay garabka weyn siiyeen ururka Alfatras oo hadda ka hor soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isla markaasna waxbarashadiisa intii u dambeysay si weyn uga qayb qaadanay maxamed maanta farxadaada iyo aragtidaada ku aadan maalintan aad qalin jabisay ku soo dhaw TV University bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan dhawahay alxamdulillah maanta aad baan u faraxsanahay shucuurtayda ma soo koobi karo ruuxaantii maanta waa maalin aad iyo aad qaali ah waayo waa maalin aan ka qalinjabiyay jaamacadda waa maalin runtii mustaqbalkayga uu cadaaday oo ma aragtay ay caddahay mustaqbalkii cadaaday inta iyada ahna ma aragtay ruuxaantii ururka Alfatros waxaan ma aragtay ay ugu hambalyeynaya guusha weyn iyo ma aragtay garabgalka weyn ee ay gala qayb qaateen taasi oo runtii ah ma aragtay mid maanta dareenkayga xoojinaysa garabgalka iyo waxqabadka iyo gargaarka iyo ma aragtay informationadii ay gala qayb qaateen iyaguba ma aragtay runtii jaamacadda aan iskula kulannay hadda ka hor semesterkii u dambeeyay taasina ay gacan weyn igala geysteen oo runtii wax weyn ay gala qayb qaateen runtii maanta shucuurtaydu aad bay u sareysaa waxaan ku suganahay ma aragtay farxad aad iyo aad u weyn ma soo koobi karo waayo ma aragtay farxaddan iyada ah ma aragtay waa mid ay ka qayb qaadatay hay'adda Alfatros ama ururka Alfatros ee Ingiriiska Master Absalan agaasimaha iyo ma aragtay gudoomiyaha ururka Alfatros iyo xubnaha kale ururka Alfatros runtii waxaan leeyahay hambalyo aad baad mahadsantihiin waa guul aad igala qayb qaadateen waa guul aad ila garab joogto waa guul aad ila qabtaan iyo dareen aad ila ogtiin ama aad wax igala qayb qaadanaysaan ma aha mid aniga ii qaasa ama mid aniga aan maanta farxadani ma aha mid aniga ay farxad gelinaysa kaliya waa mid aynu ka wada bad qabno runtii maanta waa mid waalidkayga heerka maanta aan soo gaarsiisanay ay ku farxaan qoyskii iyo familigayga iyo ummaddaydii taasina waa mid aad hirgeliseen oo inagu aad ka qayb qaadateen runtii aad baan ma aragtay u faraxsanahay maanta najiib oo runtii isna socdaal dheer u soo galay inuu ma aragtay farxadda iyo dareenkayga isaga igala qayb qaato oo ka yimid magaalada Hargeysa iyo xulafada la socota dhalinyarada la socota runtii waa aad baan ugu mahadcelinayaa waayo ma aragtay barnaamijkan isaga ah waa maanta waa last time waa waqti aan soo gabagabeeyay farxaddii mustaqbalkayga oo runtii aan soo xakameeyay taasina waxay ku xiran tahay maanta dareenka iyo shucuurta iyo weynaynta ay leedahay oo aan runtii ma aragtay wax aad iyo aad aan ugu faraxsan alxamdulillah ilaahay baa mahadle hadda alle ka soo kow waa wax loo mahad celiyo ma aragtay ururkan Alfatros waa iyaga ma aragtay inta dambe insha Allah waxaan rajeynayaa kulay nolol maalmeedkayga iyo waxa si weyn bay igala qayb qaateen ilaahay ka maal mariyo wixii kale insha Allah kulay ururka iyo xubnaha kale aan is arag ama si aanan kulmin waan jeclaan lahaa insha Allah iyagna inay ma aragtay daatada iyo informationkaasi u gaaro ayna ma aragtay ururkaasi inuu urur jiray yahay ama se waxay uu iga qabtay ay wax dhaba oo ma aragtay socota ay tahay ama ay la qayb qaateen ay tahayna ma aragtay ay xaqiiqsadaan xubnaha kale ururkuna ay ogaadaan runtii waa wax markaa aad iyo aad farxad igu ah waxaana soo koobayn markaas in dhammaan xubnaha ururku ay la qayb qaataan waana message ama information aan u gudbinayo any generation kasta oo maanta ka jira ama any urur kasta oo ka jira inay sida ururka Alfatros oo kale ay uga qayb qaataan waayo ma aragtay maanta aniga aan wiil waa ma aragtay keligii wax isku qaban jiro iska shaqaysan jiro keli shaqaysta ay maanta garab galeen oo wax weyn igala qayb qaateen ma aragtay masaafada dheer ee ay soo mareen iyo barnaamijyada dheer ay igala qayb qaateen waxaan maanta soo koobi kareyn waxaan ilaahay runtii ilaahay hayniga abaal mariyaa hayniga jasaasiyo waatiin waalidkii my second parents batin I'm very appreciated today with you this celebration for my life and maana first step ka ugu horeeyay noloshayda aan qaado halkani waayo ma aragtay runtii bilaadanka marka ay dareen bixinayaan dareenadoodu uu kala duwan yahay waxay u bixiyaan qaabab kala duwan iyo nidaamyo kala duwan bay u bixiyaan
okay aad baad u mahadsantihiin waana saxa maanta runtii informationka aan gudbinaya waxa weeyaan waa waxbarashada maanta ka qayb qaatay ama se educationka maanta aan ku guuleystan ka guul gaaray ma ahan mid kaliya ani ay khusaysa ama concern garaysa all of us waa mid inoo dhaxaysa oo inagana runtii aad ka jeesaad heli doontaan oo ka abaalkeeda ka heli doontaan oo wax markaa inoo dhaxeeyo suguuda aad baan ugu faraxsanahay inagana insha Allah waxaan rajaynayaa inaad farxadda ayada ay la qayb qaadan doontaan adiguna farxi doontaan ma sha Allah aad baad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi dhinaca kale qaar ka mid ah waalidiintiisa Maxamed oo iyaguna farxadaasi kala qayb qaadanayo aan kula kulmay fagaaraha hore ee jaamacadda Amoud University ayaan wax ka weydiiyay dareenka farxadeed ee maanta sidoo kale intii aan ku guda jiray duubashada amaba ka qaybgalka xafladan ballaaran ee ay ku qalin jabinayaan ardayda jaamacadda Amoud University waxa mar kale ay suurto gashay inaan la kulmo qoyska oo ka soo jeedo Maxamed Cali Maxamed oo ah inankii daada yaraa ee hore ay taakulada dhinaca waxbarashada ay ugu fidiyeen hay'adda Alpha Trust hooyo ku soo dhaw marka hore TV Universal kelmadaada mahadnaqa aad iyo aad baan ugu faraxsanay wiilkaygaan abareerta oo ahay koriyay aad baan ugu faraxsanahay isaga iyo saaxiibadii iyo walaalihiisa ka soo qayb galay aad baan ugu mahadsanahay gabi ahaantoodba ilaahayna ha ku anfaco ayaan leeyahay rajo khayr qabana iyo guul Allah gaarsiiyo ayaan leeyahay hay'adana waan u mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa isbarbardhigga labada muuqaal oo aan ugu magac darnay shalay iyo maanta ayaa ah muuqaalo dareena farxadi ku dheehanta iyo kuwa waqtiyo murugo adag oo soo maray Maxamed balse Maxamed maanta waxa uu yahay qof guul sare ka gaaray heerka waxbarashadiisa ee muddada dheer uu ku hamiyay walow ay Maxamed soo mareen duruufo adag oo cadaadis galiyay noloshiisa iyo tan qoyskiisaba Maxamed waxa uu maanta gacanta ku hayaa oo mas'uul ka sii yahay qaar ka mid ah awlaadii hooyadii aabihii la dhaleen sida uu noo sheegay waxa uu sheegay in 4 gabdhood oo kamid ah walaalihii uu gacanta ku hayo balse marka aan wax ka weydiiyay dhinaca farxadda noloshiisan iyo jaamacadan uu dhameystiray ee qaabka noloshiisa uu wajihi doono waxa uu Maxamed u muuqday mid farxadiisa aan la soo koobi karin isagoo wax walba ku xidhayay dhinaca Alle waqtiyo kasta oo adag oo bini aadamka soo mara oo loo samraa waxa laga gudbaa isku duubni iyo farxad sida Maxamed maanta idinka muuqata waxana barnaamijkan sida gaarka uga hadlaya Maxamed Cali Maxamed idin soo diyaariyay anigoo ah Najiib Cabdiwali Cabdixiis iyo Cabdiraxmaan Axmed Muuse Cabdiraxmaan Dalmaryare oo iga caawinaya dhinaca muuqaalada qurxoon iyo guud ahaanba mas'uuliyiinta sarsare ee Alpha Trust oo iyaguna gacan weyn ka geystay barnaamijkani